Waraabuhu waa xayawaan laga helo kaymaha Afrika iyo meelo badan oo dunida ka tirsan. Waraabuhu wuxuu leeyahay dhaqamo cajaa'ib leh sida wax hurdama dila ee mar waliba markii uu wax dilaya ka hor ayuu hurdada ka kiciyaa intuusan dilin. Waraabuhu waxaa la sheegaa inuu yahay geesi fuli ah, taasoo ay u sababtay dardaaran hooyadii ay ku dardaarmisay. Hooyadii ayaa waxaa la sheegaa inay tiri, "Waraabow, wixii kugu soo cararo ka carar, wixii kaa cararana ku carar." Waraabuhu waxaa la sheegaa haddii uu cararo ama uu cabsado inuu bano ama uu shumo. Waraabuhu dabeecadaha la yaab kale ee uu leeyahay waxaa ka mid ah hooyadii waraabuhu intii nooshahay wuu nuugaa markuu carruurta yahay. Markuu weynaadana haddii hooyadu ay ergowto ama ay rimi u baahato wuu riminayaa. Waxaa kaloo la mid ah hadday dhimatana hilibkeeda wuu cunayaa. Mararka qaar waxaa dhex mara dagaal u dhexeeya waraabaha iyo libaaxa. Waraabuhu dhaqan xumadiisu waxaa ka mid ah haddii mid ka mid ah libaaxa uu dhaawaca ama uu dilo, wuxuu ku bilaabaa midka isaga la socday ee la dilay oo hilibkiisii uu cunaa. Kadib markuu bogo ayuu libaaxiisii dabagalaa. Waa geesi fuli ah, waa isuma roone, isuma naxariiste, arxan laawo ah. Waraabuhu wuxuu cunaa xayawaanada duurjoogta iyo dabjoogta labaduba. Hadba kii uu ka awood badan yahay ayuuna ku sii daran yahay. Waraabuhu waxaa la sheegaa inuu hal lug u gaaban yahay, taa oo loogu magac daray Cumar Lugaab. Waraabuhu carruurtiisa waxaa lagu magacaabaa dhal waraabe. Soomaalidu ayaa waxay tiraahdaa ha noqon dhal waraabe, taasoo loola jeedo oraahdii waraabuhu ku caanbaxday ee ahayd, "Hooyaday intay nooshahay waan nuugi, hadday rintana waan rimin, hadday dhimatana hilibkeeda waan cuni." Waxaa la sheegaa waraabuhu xilli ay xayawaanadu hadlayeen inuu yidhi, "Magaca ha layga beddela magaca waraaba oo micnihiisu uu yahay wax cuna ama cadow ah." Wuxuuna yidhi, "Ha laygu beddela in lay bixiyo Aamin." Magaca waa loo oggolaaday in laga beddelo. Shir ayayna isugu imaadeen habar dugaag oo uu guddoominayay boqorka duurjoogta libaaxa. Waraabuhu waxaa loo dhiibay hal iyo nirig oo la yidhi ha lagugu soo gaaro, kadibna magaca waa laga beddeli. Waraabuhu markuu hashi iyo nirigtii muddo dul joogay ayuu dareeray. Hilibkii hashi iyo nirigtii ayaa u soo dhadhamay isagoo aanan weli dhaawacin. Wuxuu isku dayay taatikooyin fara badan. Akhiiranne wuxuu yidhi, "Waxaan nirigtii ayuu labada bishimood ka goostay ama labada faruur." Waraabuhu markii nirigtii hasha labada bishimood uu ka goostay, hashi ayaa olashay, hilibkiina wuu u dhadhamay, dareerkiina wuu ku sii darsaday. Waraabihii mar labaad hashi ayuu candhada ka gooyay. Maalintii dambe waxaa isugu imaaday dhammaan habar dugaag oo doonayso in ay magaca ka beddesho. Waraabuhu waxaa la yidhi, "Soo dhawow, hashi iyo nirigtana isku soo day haysnuugaane aynu caana lisna." Waraabuhu inuu gees u cararay, baroortay ayuu yidhi, "Alla, haba nuugtee maxay ku nuugtaa, haba nuugtee maxay ka nuugtaa." oo uu la jeeday nirigtu haba nuugtee maxay ku nuugtaa oo bishimihii ayaan ka goostay. Hashu haba nuugtee maxay ka nuugtaa oo candhadii ayaan ka goostay.